dadkiisii أحمد قري dadkiisii walaalayaal waxa la yiraahdaa history repeats itself taariikhdu iyada ay soo celisa ma jirto ummad nolosheeda oo dhan hurdaysa oo seexatay oo lagu dul soconaya ma jirto ilaahay baa ballan qaado yiri wa tilka alayaamu nudaawiluha bayna an-naas haddii uu waqtigu xukunka gacanta ku soo geliyo oo dadkaad xukunto aad cadaalad xukumi weydo oo waxa ummadaadu hayso aad si wanaagsan aad ugu barax jiri weydo oo ugu hagaajin weydo maalin baa lagu dhaqaajin doonaa waxa la dhaqaajiyay dawladda ka waaweyn baa la dhaqaajiyay dulmiye ka waaweyn baa la dhaqaajiyay waxaynu leenahay isma muquunin karno codka halkan yaala cod la muquunin karo maaha cod la muquunin karo maaha walaalayaal waxa fiican qofka bilaadakii inuu xasuusto halkuu shalay uu ka yimid inuu xasuusto fiican ilaahay baa yiri fa'tabiruu ya ulil absar halkuu qayrka ku jabay haddaad wali rafanayso oo wixii shalay Soomaali kala dilay ad la dhex fadhida maanta Soomaaliland dhexdeeda cadaalad noqon mayso taasi waxaan ku faraxsanahay dareenkan habeen ka dambaysa si tarmaya si awoodaysanaya si xoogaysanaya 30 sanadood waxa waqtigeenu ku lumay aad baad u yareedeen intiinani 20 oday 15 oday iyo waxaan dhaamin baa kulna Hargeysa oo sii socday kulna boorama ku soo socday waanu iskhilaafnay waanu isdiidnay hebel baa khiyaamaynaya hebel baa halka ka baxay waxa doodoodu ahayd inay midhadhali weydo doodaas oo jirkii waxa keentay dad tira yari masiiru madad waxba kama bedelaan laakiin arrin qoys iyo arrin qof ayay wax ka bedeli karaan marka doonaysaan inaad heshaan shaqada aad u haraad qabtaan marka doonaysaan hay'adaha kala duwan ee Soomaaliland inaad qaybtiina qaadataan marka doonaysaan scholarshipyada Soomaaliland inaad qaybtiina qaadataan marka doonaysaan qandaraasyada Soomaaliland inaad qaybtiina qaadataan marka doonaysaan safiirada inaad qaybtiina qaadataan marka doonaysaan inaad xildhibaanada intaad u qaadataan waxa la doonayaa inaad dhammaantiin soo sarakacdaan oo qof walba ku taagay ka soo sarkaca la doonayaa ma jirto taariikhda dad boqolkiiba boqol meel isku raacay ma jiraan nabi maxamed buu ilaahay soo diray calayhi salaatu wasalaam kalimatul haq buu siday diinta ilaahay buu siday qulu la ilaha illa allah tuflihun markuu yiri waa lagu qaybsamo reer bani haashim reer abi daalib baa ku qaybsamay laakiin yaa guuleystay intii xaqa ku socotay baa guuleysatay intii wanaaga doonaysa baa guuleysatay intii cadaaladda doonaysa baa guuleysatay war halkan ma mid inaga mida oo dulmi u fadhiya oo inuu walaalaheen dulmo inuu isagu uu ummadda dulmo doonaya halka fadhiya soo waxaynu xaq u leenahay ma doonayno de maxaa keenay inay ceeb noqoto inay cayn noqoto inaad dadka looga dhigo waxay ummadi doonayso ee dareen ummadeed rabitaan ummadeed laga dhigo qaran dumis in meelaha la wareegaysto Soomaaliya ka dambaysa xagee Soomaaliya naga dambaysa dalkeegii baanu joognaa dalkeegii baanu ka hadlaynaa dawladdaanu dhisnay baanu doonaynaa way dhisantay Soomaaliland way kabatay qaybteedii baanu doonaa cadaaladeedaanu doonaynaa waxaan doonayaa innaga dareenkeena iyo rabitaankeena halkan ku joognaa maaha mid aynu kaga soo horjeedno jiritaanka iyo qarannimada Soomaaliland waa mid aynu doonayno inaynu waxaynu xaq u leenahay helno dadka kale xaqooda la dhacanay helaan baarlamaanka yaridiisu waxyaabaha in baday baan idin sheegaya mad maqasheen miisaaniyada Soomaaliland duuduub baa lagu ansixiyaa sababta duuduubka loogu ansixiyaa ma taqaan wax kale ma waa si aan dadkan xildhibaanada mooshinay ku soo jeedin karaan aan lahayni aanay uga dhex doodin waxa weeyaan golaha dhexdiisa way
absolute majority golaha ayaa isku reer noqday Soomaaliba inaan is dhaqan garanaynaa habeenkii inta guri la fadhiisto ee lagu soo heshiiyay la dhaho ood weynaynta ku qor ma adartay caynaba meesha la dhaanayta ku qor gabileynayta ku qor ayaa lagu horay durdura lagu wasixiyay dadka kale intoodii yaa qoraya waxaanu doonaynaa xildhibaanadii dila boon garbadadar sayla lughaya iyo boorama mashaariicda u qori lahaa baanu doonaynaa waxaanu doonaynaa waraada ma cid naga dulqaad badan baa jirta soddonka sannadood ay Soomaaliland jirto waxaan ummadda kale lagu soo baa lagu sameeyay hal doorkeena inta halka lagu gowraco aan cid waxba iska weydiinin kuwii gowracay ayaa habeen ba Hargeysa gabilay lagu casuumaa hay inta iskaalka laga soo sii daayay yaan naga dulqaad badan annaga yaan naga dulqaad badan waryaanta qonnimo la wada dulqaadka niyo waanu xisaabtamaynaa sababta ay dadka waayo haddaan golaha wakiilada ku leenahay number mooshinkeena maxkamadda mooshinka keeni lahaayeen ee sii daysay madaxweynaha sii daayay gacan ku dhiiglayaasha dadka wax ma garatada jidka u galay ayaa mooshin laga keeni lahaa laakiin ma jirto mooshin lama keeni karo lama keeni karo qaar baa inta la dilay ayda loo dhigaa kii u dambeeyay wajaalu ka dhacay saraakiil nabadoonna ah oo inta boorama laga kaxeeyay halkaasay joogeen labadii sargaalo inooga shaqeynayeen baabuurta inoo kala hagayeen inta la kaxeeyay ee nabad ilaalin loo geeyay ceelaf weyn maanta halkay ku tirsan halkay joogaan waxaa way maxkamadii joogay waxaan idiin sheegayaa laba kiiso xun baa ka dhacay Hargeysa dhexdeeda wixii laga yeelaan idiin sheegayaa wixii laga yeelay ayaan idiin sheegayaa waxa laga yeelay gabar dishay way aastay 30 maalmood ka bacdi baa qisaastii la fuliyay dadka laga baqaya qisaasta loo fuliyay ganacsadihii gacmo dheere Allah u naxariisto labadoodaba ayaa Hargeysa inuu ku dilay askariya dilay 12 maalmood ka bacdi baa qisaastiisa la fuliyay war inaga ganacsatadeenu mariyaa ma idaa ma looba maxaa qisaastooda loo fuli waayay waa markaad seexateen eed aqbasheen dulliga eed hadli weydeen eed xaqiina sheega weydeen ayaa wax kasta la inagu sameeyay war ma doonayo kacdoonka caadifada iyo rabitaanka xoogganaydu ku jira inuu cid ku xadgudbo ma doonayno inagu sharcigaynu ku qarnaqsanaynaa ilaa inta sharciga laga quusanayo dawladnimada dhexdeeda ku qarnaqsanaynaa ilaa inta dawladnimada laga quusanayo nabadgelyadaynu ilaalinaynaa wanaagaynu ilaalinaynaa wadajirkaynu ilaalinaynaa walaalayaal waxaan ku soo gabagabaynayaa kuwa waxaa samaynayay reer maaha oo isaaq maaha oo reer hebel maaha oo ummadhanna dad wanaagsan baa ku jira oo muxsiniina ku jira oo cadaalad doonaya ku jira laakiin wadeer ninaan wadanin oo hashiisa dabada haysan waa laga qalanayaa dee cidda gaboodfalka samaysay ee ummadda riciyadda iskaga dhigtay ee ummadda isku dulmiday ee qaar xaqooga aastay qaarna xaqooga cirka geysay reer maahine waa dawladnimadii aynu dhisannay weeye waxaan ku soo gabagabaynayaa dad baa jira gobollada ka soo jeeda oo doodeennan inala qaba oo inagu waafaqsan oo social media ka ololeeyaa jira oo la reer awdal codkooga la dhagaysto reer awdal xaqooga alla siiyo labaa jira kuwaasi waynu u mahadnaqaynaa waxaanu leenahay waad mahadsantihiin waxaad u hadlaysaan Soomaaliland la wada leeyahay waxaad u hadlaysaan dal la wada leeyahay waxaad u hadlaysaan inaynu Soomaaliland inagoo isku qanacsan aynu sii wada soconno 30 sano dambe 100 sano doonaysaane annaguna kaasaan doonaynaa ma doonayna Soomaaliland inay kala tagto ma doonayna inaynu noqonno riciyad iyo intii riciyada loo hayna noqonay waxaan doonaynaa
inaynu garba siman iyo walaalo siman noqonaa doonaynaa waxaan halkan ka xusayaa aan uga mahadnaqayaa garyaqaan guuleed dafaac oo halkan inoogu yimiday oo ina garab istaagay waxa la garyaqaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan u mahadnaqayaa inan barwaaqo la yiraahdo oo magaalada Burco joogta oo u ololeynaysa in reer Boorama codkooda la dhageysto iyadana waxaanu leenahay thank you walaalood mahadsan tahay waxa weeyaan waqti badan baad joogteen waxa weeyaan waa 10 barkii dareenkay wanaagsan ee halkan idin keenay aad iyo aad